kuwani waa ilaalada gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxda sare ee dalkaasi. Republican Guard waa ciidan si gaar ah u tababaran oo u xilsaaran badqabka hogaaminta dalkaasi. 2018 waxaa la xasuusan yahay in ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo muddo kooban hayay xilka in la isku dayay in la kharajiyo xilli uu ka qayb galayay munaasabad ka dhacaysay fagaaraha masqalka ee bartamaha Addis Ababa. Waxa ay kamaraduhu qabteen ra'iisul wasaaraha oo si degdeg ah looga saarayo madasha. mar dambe oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu ku sifeeyay in uu ahaa isku day fashilmay oo ay wadeen kuwa diidan Itoobiya mid ah. dhacdadaasi waxaa ku dhintay hal qof, tiro kalena waa ay ku dhaawacantay. bartamihii bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi, koox askar ah ayaa waxa ay galeen amar la'aan aqalka looga taliyo dalkaasi ee Arat Kilo. waxay ku socdeen nidaam fasax la'aan ah oo aan waafaqsanayn asluubta militariga. waxay dalbanayeen in loo kordhiyo mushaaraadka iyo gunooyinka ay qaataan, laakiin Abiy oo la hadlayay golaha xildhibaanada ayaa waxa uu sheegay in ujeedku uu ahaa mid la doonayay in isaga lagu kharajiyo. taasi haddaba waxa ay sabab u noqotay aasaaska ciidan gaar ah oo ilaalada madaxda sare ee waddankaasi oo si adag loo qaabeeyey. Republican Guard waxaa lagu carbiyey tababaro kala jaad ah. waa ciidan si adag u hubaysan, abaabulan, isla markaana mushaaraadka iyo gunooyinka ay qaataan ay ka badan tahay ciidamada kale ee caadiga ah. ciidankani haddaba waxa ay isticmaalaan gawaari iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca. hubka ay adeegsadaan waxaa ka mid ah ka lagu farsameeyo Mareykanka ee loo yaqaano CAR 816 iyo qoryaha snaybarada ah. waxa kale oo ay ku qalabaysan yihiin qoriga Israa'iiliga ah ee Tafor Tar 21 oo ah qori lagu farsameeyey warshadda hubka ee Israa'iil. waa qori adeegiisa iyo isticmaalkiisu waa aad u fudud yahay. halkii daqiiqo waxaa la sheegay inay ka dhici karto 900 oo xabo oo rasaas ah. taasi haddaba waxay la micno tahay in labadii ilbiriqsiba ay ka dhici karto 30 midh oo rasaas ah. culayska qorigani waa 3.27 kilogram, halka dhererkiisu uu yahay 28.3 inch. Republican Guard waxay xaq u leeyihiin isticmaalka awood kasta oo ay ku sugi karaan amniga madaxda loo xilsaaray ilaaladooda. u fiirso dhacdadani. waa soo dhaweyntii madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki. waxaad arki kartaa Abiy oo si degdega uga soo degaya gaari si uu u salaamo kumanaan qof oo isugu soo baxay. balse ciidanka ayaa si degdega waxay ugu qasbayaan in uu gaariga dib ugu laabto, iyagoo ka cabsi qaba rabshado ay samayn karaan bannaanbaxayaasha. ciidankan haddaba u xilsaaran ilaalada hogaamiyaha ugu da'da yar qaaradda Afrika iyo weliba madaxda sare ee Itoobiya waxa ay ka qayb galeen intii uu socday dagaalkii ka dhacay Tigray iyo waqooyiga Itoobiya, iyaga oo fulinayay howlgallo gaar ah. ciidankani Republican Guard la yiraahdo ee ilaalada madaxda sare ee Itoobiya waxa ay sidoo kale ka dhisan yihiin wadamo kale oo caalamka ah, inkasta oo ay leeyihiin magacyo kala duwan. National Guard iyo Presidential Guard waa magacyada loo yaqaano meelaha qaarkood.
hogaamiyihii hore ee dalka Ciraaq Saddam Hussein ayaa si weyn loogu xasuustaa ciidanka noocan oo kala ah. Xarsul Jamhuuriya Ciraaqi waxa uu cimrigoodu ku ekaa 2003 duulaankii uu Maraykanku hogaaminayay ee dalkaasi lagu qaaday. qaaradda Afrika dhowr waddan ayaa ciidanka ilaalada ee noocan oo kala ah leh. waxaa ka mid ah waddamada Masar, Suudaan, Congo, Ivory Coast iyo qaar kale. Talyaaniga, Holland, Spain iyo waddamo kale oo hore u lahaan jiray ayaa iyagu tirtiray qaab dhismeedka ciidamadani. inkasta oo Faransiisku uu weli leeyahay ciidamada loo yaqaano gendarmeriga kuwaasi oo u xil saaran ilaalada madaxda qaranka iyo caasimadda dalkaasi.